social media waxyaabo badan oo suurta geliya waxyaabo badan ayuu suurta geliya wuxuu suurta geliyay dadkii inay isdhex qaadaan jaanta rogan inay noqoto haddii shimbiruhu ay shimbirba shimbirkeeda la duulaysay haddaba la isku dhex qasmay social media wuxuu suurta geliyay shimbiraan shimbirkaaga ahayn inuu ku soo raadsado adiguna midaan midkaaga ahayn inaad la duusho wuxuu suurta geliyay qof xanuunsanaya oo alla ya rasuul u baahan oo in quraan reerkiisu saartaan u baahan oo in dhakhtar lala raadiyo u baahan oo psychological problems qaba oo asaga dhanba in wax laga qabto howl laga qabto u baahan inuu hoosta ku soo geliyo oo saaxiibka la dhigo social media ayaa baraha bulshada ayaa suurta geliya telefoonnadan kaan hadda idin kala hadlaayo oo aan sariirteeda la dul saarana hatta kursi ma fadhiyo sariirteeda la dul saarana ayaa suurta geliya wax badan oo hore suurtagal u ahayn suurtagal u Soomaaliya waxa jira afka waxa naga qabsa Soomaalida hore dad fiican ay ahaayeen dad fiican ma ahayn Soomaalidu weligood dhaqankoodu noocaan u ahaa wuxuu ahaa dhaqan ceebta ay qaban ogtahay qofka dumarka ah wuxuu ahaa dhaqan isgarab taaga dambiilaha weligood saanay ahaayeen idagaysta waanu soo noolayn annaga naga sii hordad baan noolaa laakiin maxay ka farqigu maxay yahay shalay waxaa jiray xilliyadii annaga aan gabdhaha yaryar ahayn waxaa jiray rag lagu sheekaysto xaafadaha oo la yiraahdo ninkaas maqaayadu xaaskiisa kaga sheekeeya maradiisa iyo gogashiisa maqaayadaha kaga sheekeeya waa jireen hadda kuwii dhaleen waaya kuwa hadda sawirada intaad u dirtaan idinku ceebaynaya sawirada aad u dirteen Soomaali hore fiicneed iyo mid dambe xul ma jirto Soomaalidu isku wada mid dhaqanka sidii u soo wada guuraan xabad kama bedelin diintii waxba kama bedelin just cimaamada iyo qamiisyo iyo xijaabkan aan hadda xiranahay isla loo xirtaan baranee wax aan ka bedelna male ilaahay mana leeyahay oo runta ma tahay inaan soo sheegnaa mase beenaan isku camirnaa ninkii raggii shalay waxa jira rag la magac ah ya oo xaasaskooda hablo markii aan sariirta tagno sidan ay dhaxdaa way reentaa kanay samaysaa waa cabaada nimankii saas ahaa akhlaaq darada ilaa heerkaas qabay kuwoodii le oo dhaleen oo yaryar le waa kuwa hadda sawirada idinka qaadaya idinka oo videoyada idinka duubay nothing changed just waxa isbedela kuwaas ma haysanin social media iyo ma aanan haysanin telefoonka casriga oo hadda idinka haysatiin ما هيسن إلهي بارتو نقول جعل كولا ير لي هذا جوجو سنجو دي لا وايا وحنتو دي وايا وأبور كودي واي مركا هرنا ما هن إلا آمن حدنا ما هن إلا آمن وحان أوجه أن حسوستا حافظها كده حد يجري ننح حاس كسي أنتو وجشك ركله loo dhigay gar loo dhigay oo gobol loo fariistay gabadha reerkeedii soo fariisteen asaga reerkiisii soo fariistay oo naagtada xad ugu faaqida maqaayad heblow la yar xad maqaayad hebla dhexdeeda naagtada ugu faaqidays marka laba arrin aan kala saarno anu rag difaaci maayo oo wax la difaacaba waa ka farabateen laakiin inaanan u cinda qaadanayn madaxa ka wada qaban oo aanan dhixin way wada xun yihiin oo way wada sidan oo way wada duubayaan wada duubi maayaan laakiin adiga muga horaba wax laga duubaba ha ka dhigin ba available haba isku diyaarin wax laga duubo maxay aso ha xumaada ninkan ama ha fiicnaada wuxuu duuba ha waayaba okay waxaaga hadaa haysato jirkaaga ilaa adaa asturan markuu ninku ku dhaho isku kaysoo qaawi ee isoo duub ninkaas guurka ma rabo hadii aad u haysato inuu guurka ma ka rabo waa beenti guur ma ka rabo guurka ka raba korkaaga oo ku asturnaado oo ku faraxsanaanaya inuu sugu ku faraxsanaanaya mana dhararaya karkabana kuma jirto ilaa naar iyo maaragtay aynimo u la cararaya ninkaas ma qaba waa ina intaas garataan gabdhow
hooyo ahaan ayaan idinla hadlayaa idinlama hadlayo maanta wariye ahaan idinlama hadlayo psychologist ahaan idinlama hadlayo maxay tan counselor ahaan waxaasoo dhan idinlama hadlayo waxaa idinla hadlaya hooyo ahaan maadaama hooyo ahaan idinla hadlayo si ninkii wanaagsanaana aan loo ajaafaynin ila raggii ma wada xumee kii xumaana aan fursad loo siinin oo ceelka uu rabo inuu ka biyo cabo aan biyaha oonan uga dhaansan waa in aad idinku garataan inaad marka horeba aan sawir laydinka qaadeen sawir maa rabtaa haa sugo anigii oo dhanaaba soo socdee soo is aroosi mayno haa dee walaalow aan isu sugno hadde anigii oo dhan oo mudh ah baaba ku dhinac seexan doona halkaasuu shir ku xiranya arrimaheenii kala nooga hadal adduunka wax laga sheekaystaaba badan ninku ku dhaha waa ku aroosa yaa seenu isu aroosna reerkeena meega doonanaysaa meeqaad iga bixinaysaa meherka meeqaad awooda howl kalood ku mashquulisaan ragga aaba jiree maxaa cawradiina loo duubayaaba idinkuna aad u bixinaysaan fursaddaas ninkaasi waxaaba laga rabaaba 2,000 oo su'aalood maa weydiisid ninka 2,000 oo su'aalood asoo xiiqsan ha kaa tago habeenkaa seexdo alla yaa nafte oo baxsada ya asoo baxsada oo xiiqsan ha kaa tage maa runta u sheegtiin ya waxay ogaanaysaan hadda dowlad waa qabnaa of course waa qabnaa qaladaad badanaa iska jira weli macnaha dowladnimadeena maynan istaagin sal ma nihin sharci ma leh waddanka gudihiisana sharci ma leh dibadiisana sharci ma leh annagiina ma nihin dad u bartay inuu sharcigu difaaco shuruucda inay ilaaliso marka xataa adoo yurub ku nool baa mid kaloo yurub ku nool video kaa duuba asad adigana dacweey meesha shibadka leedahay sababtu waxay tahay maba aada u barinba ninka inaa sharciga marsiiso uma baranba uma baran sharci ku protect garay uma baran abootadaa sharci ma soo protect garay habartaa sharci soo ilaaliya ma soo helin wadankay ka timid iyadoo qaxa oo cagla habaaba adiga meelahana imaata adiga markaa meelahan imaata adigana sharci oo ku ilaaliya oo ku difaaca adoo haysta oo UK oo kala degan Sweden oo kala degan Norway oo kala degan Finland oo kala degan oo sharci leh baadan haddana sharcigii aaminsanayno kumaba qanacsanido wax sharci soo difaacaba reerkiina kama mid ah asaa video laga duuba markaasaa meel walba la marina one report oo booliiska u bixisa kugu filan revenge born ala dhaha revenge born a sharcigaas la dhaha dadka ingiriiska ila jooga barta revenge born boonkii oo macsida ahaa aarsiga macsida ala dhaha macsidii aarsiga ayaa la yiraa marka video lagaa duubo ama sawir lagaa qaado oo babliga lagaa dhigo xataa haddaad qalad gasho anu maba raba inaad qalad gashaane ooyba dhacdo oo shaydaan kaa saa'id caleeyo ooba wixii lagaa duubo ood aragta in babliga lagaa dhigo hooyadii buu ka caanamaalayaa waa in aad sharciga marsiiso itus revenge bona la dhahaa magaciisa xataa idiin sheegaya UK haddaa joogto laakiin ani Scandinavia iyo ma aqaano kolley magacuu u leeyahay ilaa iyo America waa illegal waxa lagaa duubay lama soo dhigo kara public laba dambe la isugu kaa dari maayo weli ilaahay toobadiis waa kuu furan tahay ninaa isu qaawisa inaad ka soo laabato salaadaada tukato ilaahay oo cafi mar dambe uma noqonayo atara but that is a law waa sharci adoo marka meel sharci la jooga turki xataa haddaa jooga waa inaa sharciga marsiiso waa inaa barataan Soomaaliya isla nahay saan u lahayn war ilmihiya kufsi lagu dhameeyay waxaas ma jiraan criminal is a criminal dambiile qofka markaa noqdo waa dambiile ma protect karaynayso protection ma ku siin kartid for Soomaali waaye daraadis ma ku siin kartid ta kale oo raba inaan ka hadlo waxa waaye waalidiinta ilmaha waalidiinta dhalay kuwa Soomaaliya sidaasaa waalidkeen noo ilaashan jiray ilaashta ilmihiina ninaha ku aaminina kuwa jooga wadamadaana ka daaya ilmaha aad baraysaan nin walba ee hulaaban ee Soomaaliya aad leedihiin waa adeer iyo waa abti ka dhaafa taasi waxay sahashay in caruurtiinu ay baylaha noqdaan cidlaan
uu ka kufsado asoo Soomaaliya because adaa u sheegay canugu waa innocent waxba ma garta canugaan dambe ma garin adaa waxaa u sheegtay inuu ninkaani abti iyo adeer yahay ninkaani inuu family yahay adaa u sheegay iska daa niman Soomaaliyeed kuwa kale ee islaamka ah ee kala ah ayaad ku maxay ahayd adeer no abti ma jiraan meeshaan abti run ahaa jiro adeerna adeer run ahaa jiro kuwaasina sida lagu isku arka aaba aqaana aniga ilmana waa ku korsada laakiin nimankan Soomaaliyeed ee nin walbaaba aad caruurta u baraysaan markay yaryar yihiin abti hebelaaw adeer hebelaaw aan waxba u ahayn ka dhaafa taasi waxay sahashay canugii haddii si kasta la yeelo waxaad gudbo sexual assault lagu sameeyo inaan canuga ku sheegin because abti iyo adeer shaqadii ay ka qabahayeen asaga inay tahay u haystaa canuga yarka ee miskiinka ee innocent-ga waalidiinta taas waxa ku soo haray gabdhaha meel kasta ku ooyaya haddii gabar Soomaaliyeed ay soo ooyday ooyintii ugu badnayd horta anaa soo qofka bini'aadamka waxa wanaagsan markuu sheekaynayo inuu xaqiiqda ka sheekayo waana sheekayo anay idinka waa isbaranna sanadka hore isbaranna wixii markaas ka horreey aaminada xagga ka hadasha aaminada xagga taagan aaminada codka waxda idin ah laakiin waa isbaranna hadda haddii qof bini'aadana oo gabar Soomaaliyeed ay ooyday ooyintii ugu badneed horta anaa ooyay amar idin sheegay maantana ma ooyo haayo gabdhaha marka hadda ooyaya waxaan rabaa inaan idin sheego xaalka kala goosgoosta inta aad dhiban tihiin hadal badan ha hadlina ma xamili kartaan qaniiyadu markay kugu dhagan tahay oo xanuunka uu ku haayo hadal fara badan ma geli kartid haddaad gashidna emotional noqonaysaa depressed tahay waa isku dhex daadsan tahay wax walba ka suura gala ooyintaada luuqa ku ooy tartiib soo ooy laakiin markaad ilmaha soo korsato ood soo dhammaysato hawshaada yaa hawsha soo kala goosta hooyooyinka hadda ay possible ka tahay inay dhibaatada ku jiraan la haya hawsha soo kala goosta marka ay xanuunka kugu dhagan yahay ilmahaaga yaryar yihiin aad baanbara bedelayso la barafka la qubcubuc leedahay dhexdiisa wax kuu gargaaraa aanay jiran kii kaa dhalay kugu jeesjeesayo kugu dayacay waxba kugu siinaynin Soomaalida kalena dee barnaamijka hortiisaan ku